واتهيا دوما حسن يحيى الشيخ محمد عبد أمال شيخ waxaa jirto in ay wanaagsan tahay in la akhriyo bisha Ramadaan quraanka kariimka maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday in ay soo baxday wax la yiraahdo Quraan challenge ama tartan lagu sameeyo dhanka quraanka kariimka oo ay sameeyaan bahda fanaaniinta Soomaalida iyadoo la soo dhigayo baraha bulshada ay ku kulanto qaybaheeda kala duwan kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar lana akhrinayo quraankaasi aayadaha qaarkood si khaldan baa loo akhriyo ama aan wanaagsanayn ko Quraan challenge waxa la yiraahdo ama tartankaasi ku aadan ragga iyo dumarka dhexdooda diinta islaamku maxay ka qabtaa arintan si ku aadan in qolaba goyskeeda ay ka soo akhrinayso oo baraha bulshada iyaguna la soo dhigaan maxay ka qabtaa bismillahir rahmanir rahim runtii sawiradaasi wax kamida waan arkay fanaaniinta ay sameynayaan Soomaalida qiyaastayda waxa weeye waa jees iyo quraankii oo ku ciyaarayaan quraanka marka la akhrinayo qaab buu leeyahay marka lagu tartamayo qaab buu leeyahay usluub buu leeyahay aadaab buu leeyahay qadarin buu leeyahay waa ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa tacaala waa shay muslimiinta oo dhan kooxahooda kala duwan qadarin iyo qiimeyn ku leh in ilaahay aayaadkiisa marka lagu jeesto oo ruux isagoo akhrinaya ciyaaro oo isrido oo aayadihii jajabiyo oo fanaanadii iyadoo qaawan ay waxbaan tartamaya tiraahdo oo waa badweyntii dambiyada ahaa ay fanaaniintu ku dhex jireen bay mid ka weyn soo galeen oo shaytaankii waa meel kale u sii jiiday maxayna soo galaysaa saan isleeyahay allah tabaaraka wa tacaala aayadda fi suurati tawba uu ku yidhi قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما الله يا آياته يا رسول كيسات كتش سيسيسان وحبها عذر دارنين واد قالوا دين إيمان كذب آيات دين تكبح دين واد قالوا دين بالليل وحيانا وحاجر مقدسات ووين وأن تستيس إعياء أنجليكا القرآن challenge يعني قرآن كسي challenge لو سمين كان وواحد سويدين لواي قشن كنوع عصو كلاء عدة سمينيسا وين إلهي أنه قطو توبت كنتو ومدن وحنا عصو كلاء مركلا أكوين